السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Jumpa Institute of Professionals. وكورسنا بالانترميديت English course وأنا بوجا 4000 session English Swahili book 1 lesson 21 وأنا بيج كان لحنا إيوه سديدات. هطبع عشر كلمات anymore على ولا مرد ضمبي أما أنت وحكي ضمبي anymore مرد ضمبي أو كلا كده أنت anymore means any longer وح أنت كبر صراحة old pants old pants لغة نورث أمريكا waxaa lagu dhahaa sarwaalka caadiga laakiin luqada ingiriiska kale oo Britain waxaa la dhahaa British English waxaa la dhahaa dharka hoos laga xidho waxaa la dhahaa pants underpants baa la wadana her old pants sarwaalkeedu duuga don't fit her anymore lama eko mar dambe don't fit her anymore inta wax ka dambe lama eko anymore inta wax ka dambeeyo wey anymore ama mar dambe oo kale ka dhiganta صراحة I don't want to talk to you anymore مرضى من أقولها هذا مرة إذا كانوا حاولين I sleep هردوي و adjective صفوي when a person is asleep مركو قفكو هردو they are not awake مسو جدا the baby has been asleep عنقو وحو هردي for hours ساعدة أي هردي the baby has been asleep عنقو وحو هردي for hours ساعدة إذا كان عندك بيري ومراها نوع كميدها oo badana ku kuusan ayaa la dadkan aad uga baxo af Soomaaliya sax la wadahay laakiin waa nooc miraha kamid ah gudgudan strawberry oo kala wada aragtay berry waa miro kuusan way canabka camal u yahay a berry is a small round fruit waa miro gududan oo wareegsan that grows on certain plants oo ka baxo dhirta qaarkood and trees iyo geedaha qaarkood the berry looked mirihi berry waxa ka delicious wax macaan the berry waxa ka delicious mid macaan weeka erayga waxa collect waa verb wa ficil aruurin way collect waa aruurin waana ficil collect waa aruurin to collect things to group them together waa ina wax isku geyso all in one place hal meel ina ku aruurisan I collected shells waxa aruurin jiray shells qubkaan aruurin jiray shells waxa la qubka waxyaabaha dhintay qubkooda when I was younger markii aan yara shell dad maasho waxa la xayawaanada qaarkood oo sida carooga waxa sax lahaa shell I collected shells ka aruujire when I was younger marka ayara erayga waxa compete waa tartamid waana verb ficil weeye tartamid weeye to compete is try to be better than someone to compete is to try waa marka isku dayso to be better than ina ka fiicnaato someone ruux kale waa tartamid he will compete with very good athletes wuxuu la tartami doonaa with very good athletes orodyahanna fiican athletes waxa la ciyaartoyda orodyahanada ama ciyaaraha fudud ciyaara waxa la athletes erayga waxa conversation waa wada sheekaysi a conversation is a talk between people waa hadalka dadka u dhaxeeya wada sheekaysi there were two conversations going at once laba sheekaysi ayaa socday laba wada sheekaysi ayaa socday at once isku mar erayga waxa creature waa makhluuqaad creature waxa makhluuqaad a creature is any living thing oo wax kasto nool the creature we saw today noolihii aan aragnay maanta was either a dolphin wuxuu ahaa nooca loo yaqaan dolphin or a porpoise waa laba nooc oo malay kamid ah waxa la dolphin iyo porpoise waa laba nooc kamid ah malayga erayga kale decision waa go'aan waa noun decide ficilkeedana waa decide waa ficilkeeda a decision is a choice waa dooq ama go'aanka gal he made the wrong decision wuxuu gaaray go'aan khaldan he made the wrong decision go'aan khaldan ayuu qaatay ama choice khaldan ayuu qaatay eraygan either midkood way conjunction way waa xiriiriye either is used with to say there are two or more possibilities marka laba wax asbarba dhigaysa I either go to the beach or to the park waxaan aadi karaa xeebta ama beerta oo kale either midkood way either is used with or na wala isticmaalaa to say there are two or more possibilities you can choose to be either white waxaad dooran kartaa inaad qaadato white cadaanka or black ama madowga when you play chess markaad shatranjiga dheeraysa chess waa shatranjiga ama ciyaaro weyn erayga kale barayn waxa forest waa kaymo ama duur meelo geedo badan ku yaala way
A forest is a place with lots of trees and animals. Waa meel geedo badan iyo xayawaano badan ku yaala. I love to go walking in the forest. I love waxaan jeclahay to go walking inaan kusoo lugayo in the forest. Aad baba saddex cashar ka soo ogahay fadlan casharka soo dhageysta ma soo diray dhageysta kana daawada macnihiisa fahmo.